muhiimad weyn ay lahayd annagana labada guddi iyo wasaaradana darsiga soo barteen runtii darsigaan soo baranina waxaa ka mid ah sababaha hadda idinku nimid darsigaan soo baran waxa waaye in haddii arrin oo national project in laga shaqeeyo la rabo in aragti laga wada yeeshaa haddaan aragti laga wada yeelanin waxaa dhici karto wixii la rabay goolkii la rabay inaan la gaari karin oo meeshaas burbur ka imaanayo khilaaf daraadiis marka wax walboo la qabanayo in marka horeeto processkii laga soo heshiiyaa annagu maalintii waxaan ku mashquulsaneen xukuumad ahaan goolkii ahaa inaan shirkaas weyn qabanno waxaana ilownay oo maskaxdeena ka baxday processkii lagu mari lahaa inaan heshiis laga soo gaaro November ayaan dhexdeedii gaarnay heshiiskan gaarnay waxaan ku heshiinay process ilaa haddana si fiican noogu shaqaysaa oo nabad fiican aan dhex taalo iyo shaqo wanaag aan dhex yaalo annagoo taas ka guurayna waxaan goosanay inaan sidoo kaleeto maamul goboleedyada ama dowladaha xubinka ah federal governmentiga inaan aragtideena la wadaagna ayagana si annagoo kulligeen gacmaha iswada haysano aan u dhammaystiro dastuurkan waxaan u fiican tahay wax kale maaha 40 sano oo naga horeysay wuxuu u shaqayn waayay waxay isqabqabsi la isku haystay dastuurka ama aragti kala duwan laga lahaa iyo processka aan lagu wada heshiinin marka waxaan hadda ku soo bilownay aan tagnay Jowhar idinkaan ku soo xijinay gobolada kale inaan tagnaa rabnaa markaan soo dhammaystiran waxaan qabnaa shirkii noo qabsoomay waaye October 8 oo daafurka inaan ku qabanaa xamar kaasoo noqon doono daafurkii uu ku bilaaban lahaa campaign lagu dhammaystiri lahaa dastuurka maalinta dhaweyto shirkii madasha amniga qaranka oo idinka qayb galay mudane Cabdiweli Gaas madaxda maamul goboleedana ay joogeen anigu aan ka qayb galay waxaan ka baxshay warbixin heerka aan soo gaarsiin hadda dastuurka meeshaan marayno iyo meeshaan u socono iyo waxyaalaha la ka rabo waan inala qaybsan doonaa hadda waxaan kaloo aanan ku booriyay madaxda meesha joogtay in waqtiga uu aad noogu yar yahay sababta waxyaalaha aan rabnay in la qabto 2019 iyo 2020 waxay ku xiran yihiin in la dhammaystiraa dastuurka in la dhammaystiraa marka hore saas awgeed waxaan soo jeeday waxay ahayd tala aan awalna ka helnay madaxweynaha iyo prime ministerka iyo xataa Cabdiweli Gaas iyo Shariif Xasan oo ahaa dastuurka in la dedejiyaa 2018 in lagu dhammaystiraa adigu dad baa xoogaa ka biidiyadana laakiin markii dambe la isku raacay in la dardar geliyo lagu dhammaystiro 2018 lagu dhammaystiro marka shaqo badan noo taalo habka oo aan qorshahooleedka iskula garan waxay tahay saddex role inay kala qaataan saddexda hay'adood wasaaradda iyo labada guddi guddiga labada aqal ee baarlamaanka uu hogaaminayo mudane Cabdi Qaybdiid inay tahay shaqadooda shaqo ah inay hagaan ama direction siiyaan guddiga madaxa bannaan uu hogaaminayo mudane Afrax guddigaasoo hawsha ugu weyn meesha u taala inay eega tahay oo ah inay draftigii ay ka shaqeeyaan qoritaankii inay eega dhammaystiraan qoritaankiina optionaha hore loo soo diyaariyay baarlamaanka sagaal soo diyaariyay qaar badan oo fiican ku jiro qaar badan oo aan loo baahnayn ku jiro laakiin shaqo iyagu u taalo waa maalmaha dhan waa ka wada hadlayna in si 2018 loo dhammaystiro inay hawshooda dhex galaan wasaaraddan waxa u taalo coordination inay la samaysaa iyo fududeed inay u samaysaa labadaas guddi roolka kale noo yaalna wuxuu yahay annaga iyo wasaaradda arrimaha gudaha in laga shaqeeyo sidii looga heli lahaa heshiis waxyaalaha u baahan xalka siyaasadeed ama political settlement u baahan saa ogsoontiin waxa waaye hadda waxaan idhaahnaa federal government of Somalia laakiin runtii federal magac u yeelan kana laakiin federal manihin federal waxa lagu yaqaanaa calaamad gooli inay yeelataa oo ah
in la og yahay dowladda dhexe awoodaha ay leedahay muxuu yahay dowladaha maamul goboleedka awoodahooda maxay yihiin awoodaha isla leeyihiin maxay yihiin hadda waxaasoo dhan ma cadda afar article keliya ayaa ku qoran awood qaybsi afartana waxaa iskale dowladda federaalka oo lagama doodaan ah waana articleka 54 afartaas waxa waaye arrimaha dibadda arrinta difaaca siyaasadda dhaqaalaha jinsiyadda iyo immigrationka intii kaloo dhan dastuurka uu ka aamusay uga aamusay waxay ahayd 2012 markii aan dhamaystirayna dastuurkan oo la hogaaminayay mudane cabdiweli gaasan wasiirkan u ahaa waxaan isla garanay inaanan la qori karin awoodahaas maxaa yeelay hal maamul goboleed keliya jiro ahaa Puntland inta kale lama samaysneen marka haddii awoodahaas la kala qoranayo waa adoo mucaahado galaya ama contract galaya marka waxaan ku heshiinay waxay ahayd maadaama maamul goboleedyada aysan nala joogin hadda inaan contractgaas la geli karin maxaa yeelay berri waxay lagu qabsan karaan dhihi karaan miiska ma fadhiinina maxaana contractga lagu sameeyay marka waxyaalaha political settlement u baahan hadda inaan ka shaqeyno loo baahan yahay idinkana aad idin khuseeyo runtii maxaa yeelay Puntland ay ahayd dadkii 4 sano soo dhaafay dhahayay hal la cadeeyo wax la isla leeyahay wax la kala leeyahay hana la bilaabo awood qaybsi iyo khayraad qaybsi hal la bilaabo marka taasna hadda inaan guda galnaan rabnaa si active ah tan ugu horeysa hadda waxaan soo gooynay maalintii la weeto oo madasha amniga lagu soo gooyay in 28 bisha March shirkaas inuu ka soo baxa dhowr wax oo ay tahay mid ay tahay in la dhameystiro khayraadka qaybsigiisa in lagu heshiiyo markii lagu heshiina in loo bedelaa luqad dastuuri hadhoodii oo la geliyaa article 54 meesha ku jiro iyo in la soo wada helaa aragti siyaasadeed laga yeeshaa nooca doorashooyinka la geli doono 2020 taasna waa arrimo xal siyaasadeed u baahan waxyaalaha kale u baahanna inaan sii galno waxay noqon doontaa awoodaha la kala leeyahay maxay noqon doonaan yaa maamulaya tacliinta yaa maamulaya caafimaadka yaa maamulaya agriculture yaa maamulaya mataqaanaa bay'adda waxaas dhan in laga helo waa heshiis hadhowna loo bedelaa luqad dastuuriya loo bedelaa tan kale oo iyadana u baahan xal siyaasadeed waxa waaye canshuuraha iyo dakhliga see loo qaybsadaa ama waxyaalaha la dhaho fiscal federalism arrimo kale u baahan xal siyaasadeed waxa waaye dekadahan hadda la isku wada haysto sida looga gaari lahaa iyadana xal siyaasadeed oo formula loo heli lahaa